markasta waxaan maqlaa heblaa la dilay, heblaa la gowracay, heblaa laga dhameeyey. su-aasha dadku isweydiiyaan mar walba maxaa lagu dilay, heblaa la dilay, maxaa lagu dilay ay dadku isweydiiyaan. jawaabteeda annaga ku hayna waa tan jawaabta su-aashaas. dumarka laba ujeedo iminka loo dilaa, laba ujeedo ayaa loo dilaa, ama la biray ama si kale loo dilay. kow, dumarkii waxay bilaabeen jacayl jilitaan la yahdo. tusaale ahaan nin miskiin ah oo dumarkiiba diideen ayaa mid buu arkayaa ama lambar ka qoranaya ama lambarkeedu soo helaya, wuu la hadlayaa. xaggay odhan lahayd ku dooni maayo, iyadaan doonayn xaggay odhan lahayd ku dooni maayo, horese waa okay, waan ku ogolaaday, walaa waan ku jecelahay, saas jacayl ku wadaysa, ku jilaysa qalbadda ka gelaysaa, qalbadda si marba jeceshahay. soo maaha xabiibi macaana, soo maaha markuu ku arko nin kale muxuu sameynayaa? jawaabtu waa xaggeen. qodobka labaad waxa weeye lacagta. duma hablihii iyo Soomaalida halkaas ay ku dhufteen, iimaanka laga qaaday. mid bani isbaranaya marka wax ku salaamayso walaa $10 soo dir, walaa kan kale ii soo dir. rag iskuma jiro. nin waxa jira laga sida beeb ah, waxa laga yaabaa hooyadii, walaaladii, family-giisa lacagta ka baahan inuu habla yar ku shubo oo maalin lacag ku diro, u diro. ka soo qaad ninkaas waa xamaal. maalinta uu warwareeg ka dareemo ama nin kale kugu arko ama aad walaa niga daad kuma jecelin lacagtina aad ka dhamayso, maxaad malanaysaa inuu ku bireeyo iska day uu ku qalaya uu suka qarxinaya. way dalka xaalad adag baa lagu jiraa. ninkii soo xoogsaday kuuliga ama kii kale dariiqa ku soo galaysa marka lacagta ka cunto inaanay maxaad filanaysaa? marka laba sababood oo dumarka loo dilaa: jacaylka jilintaaka iyo lacagta laga cunayo. mid naftu hayso inay yar ku xadgudbaa u jiraa, laakiin 99% dilka dhaca ama waxyeelada dhaca waa labada qodob baa sababa. aan hore ka soo hadalnay. u fiirso gabadh kasta oo wax la yeelay, waxa wax yeelay ninka xidhiidhka la lahayd. oo aad u fiirsato gabadh kasta oo la dilay ama wax la yeelay, waxa wax yeelay nin ay xidhiidh la lahayd. saa wax laga bedelo. ragga waxaa leeyahay xoolihiina ciyaar ku bixin, hablahana waxaa leeyahay iska waantooba, waxa iska daaya, ma fiicna la iska daayo. maanta halkaas casharkeeni maanta qaybtiisa labaad halkaas inoogu joogaa. inta aynu mid kale isku imaanayno halkaa inoo joogto.